qof bilaa xishood ah qof bilaa diin ah qof diintaydii $1,000 ku bedelatay ay gaalnimo iyo kufri ku dhacday ee weli ilxaadnid iyo diin la dagaalan iyo xishoodka bulshada muslimka oo la dilo fagaaraha xumaan la yimaado sariirtayda iyo gurigeeda iyo reerkayda ay ka waranto fartuun iyo kuwa lamidka ay bilaa dhaqanka ay bilaa diinta ay bilaa xishoodkaane wala dagaalamayaan fartuun haday diinta la dagaalamayso haday dhaqanka bulshada Soomaaliyeed la dagaalamayso haday xishoodka gabdhaha Soomaaliyeed ay duulaan ku tahay annaka insha Allah ta'ala diinta oo kor loo qaado dhaqanka oo kor loo qaado samaha oo bulshada muslimka la faro ismaan dayman iida nolosha iskula jiraan ma waxa weeyaan nafta ku jecel nafta ka marmila nafta meel kala aadi la مي إسكولا جوغان شرعي إسكولا مجوغان $1 عاوة هدان هلو دين تا إسلام كوان كبحي لهاي محايا عديني إسلام لماذا أي فرطون شايغانا يسو إني وحبك جر قريق أي شبي إسكدا جانتا هاي وصدح بلاد أي كريد أي قريق أي كود جانتا هاي أي دين تا يدكو بدلات ويجي مليه محشادو مقرو أي استعماشا وأرادا أمر والبيكوع العليسو فرتون وحبذا والله رب العالمين قبر المسلمة ذكر ريبي أي بنيستي إذا انت صوفر ديستو قفك الشخصية ديسا يعايسو والد كيسو مرهرد انت يعايسو والدين تيسي أو لبعتن سنة الدنيا دا كما غاني أفلقا ديسو نسب كيسا يوحكا شاكتو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله يا مهد اسكاله دين شامل او متواتر او محفوظ نوغو ديقي بلشة مسلمة نغا ديغي وحان هلكان كاغا مهد علينيا بلشة الصوماليات بقولكي بقولي الله رب العالمين داد مسلم او كديغي انت تلد الهي كهولا دين تا اسلام كان اي حراشي حول جبان اينو هين مالك الله ني بركيو عماشنا الله ني قبلو آفاتك إليباتوينك دلكينا ودوينك سوقيدا كدعاينا الله ني قرمريو سويرك ني موقدو وقبدا اللي يرادو فرتون براها بلشدا iyo xiriirka baraha bulshada dadka isticmaala ay aad u yaqaanaan oo la yiraahdo fartuun balbalaarka fartuun dhaqanka ay ku caan baxday markaan shantaay ahaan dhiijiyo gabar diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaalida ay gaarka u tahay gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed ay dhaymanta ay nugu qaaliga intii rag oo waxgarad haweenku waa qaali waa dhayman waa farxadda adduunka dhaqan haween ma laha bal waxay duulaan ku tahay bulshada Soomaaliyeed diintooda iyo dhaqankooda duulaan ku tahay fartuun markay hadlayso waxyaabaha ay muujiso oo dhaqan xumaa waxa kamida sida soo socoto ويجي مليه محشادو مقرو أي استعماشا وأرادا أمر والبيكوع العليسو وحيابها براها بالشدة كيد أهان لوهايو أو برمدو فرتون كوها وحكم ذا إسلامكو حراشي حول جبن بويه دينت إسلامك أو قف كستو مسلمة أكتيس قيمها أي كلا يدهاي أو ما أنت قف كستو مسلمة أما مسلمة دا أما مؤمن أما مؤمنة أي الله رب العالمين صلاة كستو واجبة عربت إذا الله أدونكو أدونتو إلهي كبر دو أو ما أنت جبر كستو مسلمة دا مركي صلاة واجبة أي توكتا أي لا دهاي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوب تركرجو سيدو دونا كيلو وحاد قلبي جيجا إي قلوب تيدا أتكسكتا دين تادا إلهو الدنيا دا واحد يقب حساني ومسلمة توفني مسلما إلهو إي أوفسو
oo dunida iga kaxeey anigoo muslima oo waxaad i fartay fartoomay waxaad iga reebtana ka maran fartoon waxyaabaha laga haayo waxaa ka mid ah $1 kamaa qaalat waa sida iidu ay tiriye $1 caawa haddaan helo diinta islaamka waan ka bixi lahay maxay caddayne islaamnimada ay fartuun sheeganayso inay waxba ka jirin diinta islaamka waxay ku soo bedelatay adduunyo ma la dhihi karaa maya maxay ku bedelatay $1 oo xaansho ah guriga ay shibis ka degan tahay waa 3 bilood ay kirada ay guriga ay ku degan tahay ay diintaydu ku bedelatay ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay walaa tashtaruu biaayaati illaahi thamanan qaliilan walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati illaahi thamanan qaliilan wax yar oo adduunyo ah waxaa laga qaadanayaa wax ka badan oo lacaga thamanan waa wax yar oo adduunyo ah adduunka oo dhan haddii lagu siiyo ma laga qaadanaya maya fartoon hala weydiiyo nikaaxu laba u qaybsamaa nikaax saxiix ah iyo nikaax faasid ah iida iyo ismaan maxay iskula joogaan dad badan oo caana ayaan soo wadnaa oo baraha bulshada inta soo fadhiistay la waraystay amba qaarkood yidhi aniga iyo odaygaygii waan kala tagnay miisku noqon kartiin oo wax ma habaysateen maya waxba nooma yaalaan 3 dalqi waan ku kala tagnay 60 maalmood kadibna waxaa la haayaa iyagoo isla jiro gabadha muslimada markuu nin muslima uu furo 5 shay markay soo marto ayay ninkii hore ay ku laaban kartaa waa sida shareecada islaamka culimadayna aan u hoos fadhiisanay gabar muslimada ayaa ninkeedii ay kala tageen way isjeclaayeen balaayaa soo dhex gashay ninka ay jecleed inay ku laawato haddii dalqihii ay dhammaadeen kow dalqo ku furay waa soo ceshayey dalqa labaad buu ku furay wuu soo noqsaday gabadha muslimadaane 2 mar baa lagu noqon karaa 2 mar addalaaqu marataani mara bacda almara jaanisku waa 2 mar haddii gabadhii markaa baa'ina ay noqoto ay dalqadii saddexaad ay ninkii ku kala tagaan 5 shay soo mareen kow waa inay ismaan dhayman ka ciddo tirsato ciddadaa waa inay si saxa u dhammaysato waa inuu nin guursadaa waa inuu ninka ay gogol isku arkaan waa inuu ninkaa furaa waa inuu ninkii ay soo furay ay ka ciddo tirsataa cadda yacuddu ciddatan fartuun inta uma samaynin ismaan dhayman iyo iida noloshay iskula jiraan ma waxaa weeyaan naftaa ku jecel naftaa kaa maarmi la naftaa meel kale aadi la miyay iskula joogaan sharci iskulama joogaane inta ummadda soo hor fadhiisato ha u caddaysa waxay ismaan iskula joogaan midda labaad aayaddan ilaahay wuxuu kala hadlay munaafiqiinta ilaahay gaal kalama hadlin aayaddan ilaahay dhaqamada munaafiqiintu ilaahay ku tilmaamay dhaqamadoodii uu ilaahay ka soo hadlay hagardaamadoodii uu ilaahay ka hadlay aayaddan iyo aayadaha ku xigane ilaahay munaafiqiintu kaga hadlaya alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ثuma kadibna kafaruu gaaloobay ثuma haddale aamanuu rumeeyey ثuma haddale kafaruu gaaloobay ثuma kadibna isdaaduu siyaadsaday kufran gaalnimo alla diidnimo lam yakun ma ahaanin allaahu alle liyakfira mid dhaafaya lahum ayaka dunuubtoodii u dhaafaya walaa liyahdiyahum mid hanuuninaya sabiilan alla marka wuxuu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam alla wuxuu yihi bashir u bishaarey almunaafiqiina munaafiqiinta ugu bishaarey bianna lahum inay u sugnaatay cadaaban cadaab aliiman oo wax xanuujiya wadaadada baraha bulshada joogo waxaan leeyahay fartoon
وحبضا والله رب العالمين قبر مسلمة كالريبي أي بنيستي إذا انت صوفر ديستو قفك الشخصية ديسا يعايسو والد كيسو مرهرد انت يعايسو والدين تيسي أو لبعتن سنة الدنيا دا كما غاني أفلقا ديسو نسب كيسا يوحكا شاكتو أي الله وبقى وذا دادا وحان لاهي ولالكي داعي مختار أنيقا إلهي درسي يانكو جعله نين مصلحة قارة غنية إن لعاية حساسية كقاضايا مركي الله صوعاي براها بلشاد الله فرديستجيركو وحنونيو دين ما دفاع كرو النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كمركا ما لها قار أدول استاكتو شاعر صاحر مجنون كذاب النبي صلى الله عليه وسلم الله هيستا عدكال الله هيستو مال مها كمدا أيا خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم داوعيديسا دايجرتي قبل الهجرة صدح يطوانكي سنو مقالة مكة وجوغي انتو نهجرونين داوعيديسا دايجرتي اي دباتوين بدن مركي النبي صلى الله عليه وسلم او مقالة بنان كيدا ايا ماركتا او كلا كلمو ايا السوقيدا ايا قوبها يدادكو اسكو تغان اي نبي صلى الله عليه وسلم داوعيسا دايجرتي مالين مالمها كميدا وحو قريقو اسو قلي اساقو مركسن markaasay waraqa oo ilma adeer ahaayeen ay u yeertay oo nin rugcadaa ah oo kitaabkii tawraad wax ka akhriyay nabiga sallallahu alayhi wasallamne noloshiisii kitaabka baa lagu cadeeyay iyo calaamadihiisii markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri waraqa kalimad aad u cajiib ah ibn kathiir kan ku arkay markaasuu wuxuu yiri innahu lam ya'ti ahadun bimithli ma ji'ta bihi إلا عوديا إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا وحد لتمدي أحد لوا إيمان إلا عوديا والعلادي وذات كمان مصلحة قارة إلى شنيا دنها ريركيسة إلى شنيا دهايا قف بلا دغنا قف بلا حشود قف بلا دين قف دينتيدي كن دولار كبدلتي اي قالنimo iyo kufri ku dhacday ee wili ilhaad iyo diin la dagaalan iyo xishoodka bulshada muslimka oo la dilo faqaaraha xumaan la yimaado sariirtayda iyo gurigeeda iyo reerkeeda ay ka waranto gabadha noocaasa iyo gabadho badan oo aan soo wadno kuma dhiira karo wadaadka dhahaya diin waxba uma galo insha Allah ta'ala waxaan rabnaa fartuun hadday diinta la dagaalamayso hadday dhaqanka bulshada Soomaaliyeed la dagaalamayso hadday xishoodka gabdhaha Soomaaliyeed ay duulaan ku tahay annakana insha Allah ta'ala diinta oo kor loo qaado dhaqanka oo kor loo qaado samaha oo bulshada muslimka la faro xishoodka oo kor loo qaado munkarka iyo xishood darada iyo dhaqan xumada oo la dagaalamo ayaan baraha bulshada la iimaanayna goobtana waxaan u joognaa inaan diinta islaamka ku difaacano maadaama dalkaynu iyo bulshadayna ay muslim yihiin waxaan rabnaa islaamnimadu inay sarayso nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la islaamka asaas sareeye lagama sareeyo qof kasto oo sareyn iyo xurmo raba waxaan rabnaa inuu islaamka ka jiriyo fartoon iyo kuwa lamidka ay bila dhaqanka ay bila diinta ay bila xishoodkaane wala dagaalamayna fartan ku fiiqayna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh